magaaladan aynu joogna Hargeysa ina yarba mobilka ku gaalowday radaagada mobilka oo magaaladan ay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka ka baxday English taqaanay waalidkeedii waxay ku tiri waxaan u baahanahay jaamacadan dhigtaaye internet xoog badan inaad ii soo geliso hooyadeeda abeeda ku tiri sidii casharadii macalinku noo soo dirayo si fiican aan uga shaqayn karo baaritaan wanaagsan ku soo sameyn karo waayo dadkiina hunguri laga raaca oo qof waliba wiiliga gabadh wuxuu isleeyahay balkan ingiriisida aad hawl liqliqo si uu lacag beedar u soo daato quraanka aad hawl liqliqo oran maaya si uu alla kacabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bararta taa u badan cilmiga maadiga ah law adduunyo doonay kaasuu leeyahay ka dharki intii internetkii uu ka dharkiyay waalidkii iyaduna waxay la xiriiray qolo Norway joogto mishanka waxa ay kuwa diinta Kristaanka faafiya way waxay siiyeen dhoofkii laga raacay waxna way la soo yara qaadeen waxay dhaasay si arrinkaaga meel loogu tiiriyo de waxaan u baahanahay inaad madaxdayada la xiriiro hay'adaasanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku loofinaynaa ma iska aqbalaysaa marka xiriirka iyaga inta leeg si u sii wadeen waxay dhahaan waxaan kula xiriirin doonaa wadaadka iyaga wadaad Kristana waa boobkii kaniisada Scandinavia jooga boobkii baa la xiriiriyay diinta islaamka oo ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka weyn lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay aan ka maagalnay waana godka weyn shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeen ay qofka la doonaan إلهي بأحرك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والشيطان كي يقفك قال لما أصابن لغيرك قالوا بين يدي بريبا كاه أو نار تقوه صلاي waxay dhawa ku dhoofinayna hadaba passport baan kaaga sameeyna safaaradda Ethiopia kale tiyarado sii socotada ayuba maalmihii ugu dambeeyay waalidkeed oo hooyadeeda ayuba yara murmeeyay islaamkii u bay durtay iyo diintii islaamka iyo nabiga aad sheegaysaa ma ahayn ka dumarka dulmiyay islaamka aad sheegaysaa ma ahayn ka waxa dumarka ku sameeyay wixii yara lagu shubay wixii xumaan lagu shubay qaar kood soo ka bacday sida bulaacada ayay soo neeftay wixii ila gaalnimadu waa qurne إنما المشركون النجس قرآن كاكو شاقين النجاس يقولون تاي يخب بركة يقول عادي صور نفتر إن أنت هذه هو يدادو حياركت إن أنا إن أنت هاي إرباري كل مدنتها هو يسلنتها هذه عركت فتنوى وحيوي على أبيه إنما ذي بأولي علي إن أنت لحضوري سيد بابا الله ورئيستي بركة وحالها لي حقتي بالها لي خاتكينا ولا راعي تدرقي بالها قاعدة iyadoo sii guuraysada oo gaalowday xagee laga helay dabadba uma baxday inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan oo shuucdo naga saaxiibadaba ma laha inanteeda halka casharada bay ku urursan tahay oo habeenkii oo dhan raajacda iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uga dhaxeeya cid bay isbaraaca ma oga halka ay dadka raacdo ee screen-ka yar ka soo baxay kaba warayso sidii baa dabadna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyay dadkii xurxumaana